diinta islaamka maxay ka qabtaa in la sii ogaan karo xilliga ay dhacayso qorax madoobaadka ama dayax madoobaadka? haddiise la sii ogaan karo maxaa loogu sasaa oo salaada loo tukadaa? maxaase keeno dhab ahaantii qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka? halkani waa xarunta sayniska iyo taariikhda. dhagaystayaasha sharafta badan waxaan idinka codsanayaa taageerista xaruntan cusub ee lagu wacyigelinayo bulshada Soomaaliyeed. kanaalkeena YouTube-kana waa xarunta sayniska iyo taariikhda. fadlan waxaan u baahanahay 1000 subscribers si aan u soo galo live-ka YouTube-ka ee igu caawiya. wad mahadsantihiin. marka koobaad, qorax madoobaadka waxa uu dhacaa oo keliyata marka ay bilaha islaamka yihiin bilkow. wuxuu dhacaa bilowga bisha soonfurkoodeeda ama sidataalkoodeeda ama bisha zakakoodeeda ama soonfurkoodeeda. bilaha islaamka ee dayaxa lagu xisaabiyo koodeeda unbay dhacdaa qorax madoobaadka ee xilli kale ma dhaco. dayax madoobaadka goormuu dhacaa? dayax madoobaadka wuxuu dhacaa marka ay tahay bisha 14aadka cadda ay tahay. xilliga caddada bisa ayuu dhacaa dayax madoobaadka oo ay bisha tahay 14aadka. labada xilli ee bisha koodeeda iyo bisha kala badhkeeda oo dayaxa 14aadka yahay waxaa dhaca waxa la yidhaahdo solar tides mise lunar tides oo kala ah hirarka waaweyn ee badda ay dhaliyaan dayaxa iyo qoraxda jiidashadooda. hirarkaasi waxay ka dhashaan isjiidashada ka dhaxaysa dhulka iyo dayaxa iyo qoraxda, waana gravitational pullka. xilliga isjiidashadaasi waxay ugu daran tahay xilliga qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka, waayo qoraxda iyo dayaxa oo isku toosay oo hal line ku jiro ayaa jiidanaya dhulka. taasna waxay keeni kartaa inuu dhaco dhul gariir aada u weyn ama fatahaado ay keenaan hirarka waaweyn ee badaha kasoo fakanayo. sida lagu soo daabacay website-ka nature.com waxaa lagu soo qoray dhulgariirada aadka u waaweyn sida kii burburiyey wadanka Chile 2010 kaasoo kiciyey tsunami weyn oo geystay burbur baaxad weyn, iyo kii ka dhacay wadanka Japan 2011 waxay dhaceen dhulgariirada noocaas oo kale ah marka uu dayaxa ahaa bilkow ama marka uu dayaxa ahaa caddo buuxdo oo 14aad ah. cilmi baadhis cusub oo soo baxday bishii September 2016 oo lagu soo daabacay Nature Geoscience ayay ku xaqiijiyeen culimada seismologistiga ee jaamacadda Tokyo kadib markay baadheen wax ka badan 10,000 oo dhulgariir oo dhulgariirada 8 magnitude iyo wixii ka sareeya ah ay bilaabmeen xilli ay hirarka badda kacsan yihiin oo ay bishuna tahay kowda ama ay tahay bisho ay tahay cadda 14aad ah. inkastoo culimo badan oo saynis ah aynan arrintaasi ku qanacsanayn, haddana waxaa la ogyahay in bishii December 2004 xilli ay tahay cadda 14aad ah dhulgariir uu yahay qiyaastiisu 9 inuu ka qarxay badda salkeeda galbeedka xeebta Sumatra ee dalka Indonesia, kaas oo sababay tsunamigii ugu weynaa taariikhda la ogyahay, kaasoo dilay in ka badan 230,000 oo ruux kuna dhuftay 14 dal oo ku teedsan badweynta Hindiya.
waxaa kale oo xilliyada noocaas dhacay dhulgariiradii ba'naa ee dalka Chile burburiyey 2010 iyo kii ka dhacay Alaska 1964 kaasoo geystay burbur baaxad weyn, iyo dhulgariirkii Japan ee 2011 ku dilay 16,000 oo ruux ee burburka weyn geystay. maqaal lagu soo daabacay website-ka Session PR Newswire waxaa cinwaan looga dhigay dayax madoobaadiyada dhaliyo dhulgariirada dilaaga ah. waxaa lagu soo qoray website-kaas, waxaa laga dheragsan yahay in cuf isjiidadka ka dhexeeya dayaxa iyo dhulka ay sababaan hirar waaweyn oo biyaha badda dhaqaajiyo. waxaa kaloo sababaan in dhulka qiradiisa kore uu kuusmo xilliga isku riixa ama uu buusmo xilliga kala jiidka dhulka qiyaas dhan 55 sentimitir. waxaana sababo kala jiidashada ay qoraxda iyo dayaxa kala jiidanayaan dhulka, siiba marka ay isku toosaan ama ay halay galaan saddexda jismi ee kala ah dhulka, dayaxa iyo qoraxda. xilliga uu laynkooda ugu toosan yahayna waa xilliga ay tahay qorax ama dayax madoobaadka. cilmi baadhe Bast wuxuu yidhi, waxaan diiwaan geliyey dhulgariiradii ka weynaa qiyaasta 6.5 kasoo bilaabato 1973 anigoo isticmaalayo rekoodhyadii USGS-ta oo ah kuwa loogu kalsooni badan yahay. waxaana isbarbar dhigay buu yidhi dhulgariiradii dhacay xilligaasi wixii ka dambeeyey iyo qorax dayax madoobaadyadii. cilmi baadhistaasi waxaa lagu ogaaday in xilliga qorax madoobaadka dhulgariirka dhicistiisu inay yar tahay, laakiinse xilliga dayax madoobaadka oo ah xilliga ay qoraxda iyo dayaxa labada dhinac ka kala jiidanayaan dhulka, inay khatarta inuu dhaco dhulgariirka uu laba jibaarmo. diinta islaamka maxay ka tiri mase la ogaan karaa xilliga dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadka? haddii la ogaani karase maxaa salaada loogu tukadaa? waa la ogaan karaa waqtiga ay madoobaanayaan dayaxa iyo qoraxdu. adiga xataa waad ogaan kartaa. waxaana lagu ogaadaa xisaab iyo isku dardar xilliyada falaga iyo jurmiyada hawada sare sabaynayo xisaabtooda. taasna wax diidahayo oo daliil ah ma jirto. maxaa loo tukadaa oo loo argagaxa? dabcan xilli argagax wayba tahay, waxaana kusoo hagaago xilliyada madoobaadka masiibooyin waaweyn oo dabiici ah sida dhulgariiryo, duufaano, burkaan ka qaraxdo dhulka iyo dhiiqadad qilaqdo. culamada islaamka ahayd ee noolaa 1000 sano ka hor ayaaba ku ogaan jiray xilliyada madoobaadka xisaab iyo cilmiga falaga, oo hadda wax cusub oo hadda la ogaaday ma aha. culimadii islaamka ayaa ogaani jirtay xilliga ay dhacayso 1000 sannadood ka hor. haddaan soo qaadano imaam Ghazali rahimahullahu ta'ala asagoo arrimahaas ka hadlahayo. imaam Ghazali waxa uu dhashay 960 sano ka hor ayay ahayd dhalashadiisa. wuxuuna ku qoray kitaabkiisa Tahafutul Falasifa asaga oo ka hadlahayo arrimahaas, oo u jawaabahayo culimadii falsafada, marna u caqli celinhayo culimadii islaamka. imaam Ghazali rahimahullah wuxuu yidhi, ka qowlihim, waxaa ka mid ah hadaladoodii nimankan oo falsafada iyo cilmiga sayniska iyo cilmiga falaga. wuxuu yidhi waxaa ka mid ah qowlkooda khusuuful qamari, dayaxa
madoobaadkiisu waxa weeyaan cibaaratun can inmixaa'i dawihi, in uu tirmo iftiinkiisa bitawasuti alardi baynahu wa bayna ashamsi, in dhulka ay kala dhex gasho dayaxa iyo qoraxda dhexdooda, min xayثu annahu yaqtabisu nuurahu min ashamsi. waayo dayaxa waxa uu ka helaa iftiinkiisa oo kasoo iqtibaasaa qoraxda. sidee bay ku dhacaysaa? markaad sidan oo kale u taagan tahay, qoraxdii markay kaa libidho, hawada kore waxaa iskaga quman yihiin waa dayaxa. dayaxa iftiinka qoraxdii adiga kaa tagtay ayaa ku dhacaysa dayaxa. marka ay dayaxa ku dhacdo, iftiinkaas ayaa adiga kugu soo noqonayo. marka sidaas ayaad ku helaysaa nuurka dayaxa. marka imaam Ghazali wuxuu yidhi min xayثu annahu yaqtabisu nuurahu min ashamsi, waayo asagu wuxuu kasoo qaataa iftiinkiisa oo kasoo iqtibaasaa qoraxda. waalardu dhulkana kuratun waa sida kubadda oo kale. waasamaau muxiitatun biha min aljawaanibi, spaceka iyo samadana dhinac kasta ayay ka jirtaa. faidaa waqaca alqamaru, marka uu dayaxa dhaco fii dilli lardi, dhulka hooskiisa markuu galo, oo dhulkii ayaa ka xijaabay. mugta iftiinkiisa wuxuu ka helaya qoraxda, soo maaha? qoraxdii waxay ku dhacaysaa dhulka, asna markaan wuxuu ku jiraa dhulka hooskiisa. hooskii dhulka ka baxay ayaa ku dhacahayo dayaxii. marka waxaa meeshaasi ka go-ay iftiinkii qoraxda uga imanaya. inqataca canhu, waxaa ka go-ayo nuuru shamsi. marka saas ayay ku dhacaysaa dayax madoobaadka. waa sida idinka muuqata diagramkan, sida uu sheekhaas u sharxayo. waa goorma 960 sano ka hor ayuu sheekhan dhashay. marka culimo asaga kasii horeysayna cilmigan u yaqaaneen, oo 1200 sano ka hor ayay culimada islaamka cilmigan yaqaaneen. marka haddaanu kasoo tagno waka qowlihim iyo hadalkoodii oo kale, nimankan falaasifada ah, ana kusuufa shamsi macnaahu, in qorax madoobaadku uu yahay macnihiisu wuquufu jurmi alqamari bayna annaadiri wa bayna ashamsi. dayaxa ayaa wuxuu idinkala dhexgalahayaa qoraxdii. tusaale ahaan qoraxda waatan, dayaxii ayaa isku gudbahaya iftiinkii kasoo baxayay qoraxda. adigana bartaasoo kala taagan tahay sida ka muuqato diagramkan. marka dayaxii ayaa isku gudbahayo iftiinkii qoraxda ee adiga kusoo gaadhi lah. marka qoraxdii ayaad u malaynaysaa inay madoobaatay, laakiin dhab ahaantii qoraxda mayse madoobaanin, laakiinse waxaa kaa xijaabay dayaxa ayaa kaa xijaabay. marka hadallada noocaasa oo ay culimadan saynisyahanka ay yidhaahdaan ayuu sheekha ayuu ka jawaabahayaa. wuxuu yidhi wahada alfannu, cilmiga noocaasa, lasnaa manihi nakhuudu kuwa dhextiinbada fi ibtaalihi burintiisa, id laa yatacallaqu bihi qaradun, wax dan ah oo ku xidhan oo muhiim ah ma jirto inaan cilmigaa beenino. marka hadda wuxuu usoo jeedsaday culimadii islaamka, wuxuuna ku yidhi waman danna qofkii u maleeya ana almunaadarata, ma culimadii diinta aan dhaho, culimada diinta, sababta culimada muslimiinta way badnaayeen. qaar waxaa jiray saynisyahana ah, qaar waxaa jiray falaasifa ah, qaar waxaa jiray culamaa diin ah oo diinta cilmigeeda ku takhasusay. marka culimadii diinta ee cilmiga falaga iyo cilmiga sayniska aanan ilmaam u lahayn ayuu usoo jeedsaday oo ula hadlahaya. wuxuuna ku yidhi waman danna qofkii u maleeya ana almunaadarata fi ibtaali hada min addiini, burinta cilmiga noocaasa qofkii u maleeyo inay kamid tahay diinta, wuxuu yidhi imaam Ghazali raximah llahu tacaala faqad janaa cala addiini wadacafa amrah. qofkaas diinta ayuu godob ka galay. sabab sideebuu diinta godob uga galay?
asaga kuusii sharaxayo wuxuu yidhi هذه الأمور يقوم عليها براهين هندسية حسابية لا يبقى معها ريبة. أرمها نوعاس وحا معناها كو استاغي حجوين أي عديي وحسابات حسابات علم حساب أي لغو أغاذي براهين حسابية وهندسية أي لغو أغاذي أيو يري ويحقق أدلتها لا يبقى معها ريبة. علمي قاس وأنا شكي يعني ريبين أو وحكستكو كلا عدينايو وحين عدينيان وقتك ومذوبانيو إيو إنت مال المذوبانيسو إيو حيكو كلا عدينيسا علمي قاسي إنت دقيقة مذوغة وسعنهايو إيو مقدق أيكو كلا عدينيسا. marka wuxuu yiri sheekha qofkii cilmiga soo bartay haddii aad ku dhahdo cilmiga aad sheegayso waa been waxa weeyaan hadalkaaga ma aaminayo waxa laga yaabaa inuu ka shakiyo adiga waxaad soo baratay inuusan run ahayn maadaama asaga uu haysto cilmi xisaab oo macnaha la isku daraacsan yahay oo hadana oo dhacayo marka in la isku xijiyo maaha بيننت أرمهان مركا وحيري فإن قيل هدي هذا فقد قال وحيري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيري إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة فكيف يلائم هذا ما قالوه حديثك السداء معناها هذا الكود السداء اللي اسكو قبت سينيا هذا يدهان علماء قلنا وحانو لينهاي ليس في هذا حديث كان هذا رسولك وشيخ صلى الله عليه وسلم وحكو جيرو او مجيرو بورين هايو أريمهان وغانشها دايح مذوباتك إيو قرح مذوباتك اوكي وحكا له يلي كلية وحا وشيخ حديثك وحي تهي إن قرح إيو دايح أيسان ومذوبانين qof bini aadam ah geeridiisa iyo dhalashadiisa waxa kale oo la isku booriyay oo la isfaray salaad in la tukado oo macnaha ilaahay dhikrigiisana la badiyo wuxuu yiri sheekh arintaas salaada maxaa loo tukanaya wal amru bis salati indahu wa shar' alladhi ya'muru bis salati inda az-zawali ilaahaygiina faray salaad inaan tukano xilliga qoraxda ay soo baxayso oo ah xilliga salaatul fajrka salaada subax iyo ilaahaygiina amray in aan salaada duhur tukano markii ay samada bartankeeda ay macnaha ka dhaqaaqdo waa awqaat ilaahi ah subhanahu wa ta'ala iyo xilliga ay macnaha qoraxda ay dhacday xilliyadaas ay waqtiyaha kala guurka yihiin ilaahaygiina faray inaan tukano maxaa diidi inuu hadana ina faro inaan tukano salaad xilliga ay qoraxda madoobato ama uu dayaxa madoobaado wax diiday ma jiro marka walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin waqtiga aad ku dhageysateen waxaan idinka codsanayaa haddii aad waxun ka faa'iiday inaad videogan aad sii qaybiso si ay dadka oo dhan uga faa'iideystaan waxa kale oo maaragtay ku weydiisanaya waxa kale oo ku ogeysiinaya linkiga arrimahan linkiyaasha articleskan hoos ayay ku jiraan insha Allah ta'ala waadna ka fiirsan kartaan wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.